munaasabad ay ku qalin jibinayeen arda ka baxday mahadka xirfadlayaasha Buuhoodle ayaa lagu qabtay magaalada Buuhoodle sida warkan ku soo diray wariyahayaga Ibrahim Cabduqaadir Jabaan. waxaa maanta ka qalin jibiyay mahadka xirfadlayaasha caafimaadka Buuhoodle 53 arday oo isugu jira shaybaadhistayaal, kalkaaliyaal iyo umulisooyin. waxa ay ahayd xaflad si weyn loo soo agaasimay iyadoo ay ka soo qayb galeen bulshada noocyadeeda kala duwan sida culimada, dhaqanka, maamul heer gobol iyo heer degmo, madaxa caafimaadka ee gobolka iyo bahda waxbarashada. waxaana ugu horeyn halkaa ka hadlay madaxa maamulka maxadka Deeq Cabdi Xuseen. bacda salaan waxaan maanta rabaa inaan farxadda la qaybsado ardaydan quruxda badan ee hor fadhiya isugu jira qaybaha kala duwan ku hubeysan aqoonta caafimaad ee soo wadeen muddada 3 sano ah. waxaan leenahay habaliyo aad bay farxad ugu tahay inaanu goobjoog ka noqono maalinkii ugu horeysay ee qalinkiina iyo buugiina iyo gacantiina ay isqabtaan iyo maanta oo ay isqabteen koofiyadiina iyo gacantiina. hambaliyo ayaan leenahay farxad inoo tahay. ardaydan waxay isugu jiraan sidii xeriyuba sheegay 3 qaybood. tirada midwife-ka ama umulisooyinka hooyooyinka inoo qalin jibinaya waxaa weeye waa 30. sidoo kale kalkaaliyaha caafimaadka ama nersinka inoo qalin jibinaya waantay halkan horteeda fadhiya iyagana tiradooda waxaa weeye waa 18. sidoo kale shaybaadhka ama laboratory-ga iyagana waxaa weeye waa 6 arday. ardaydani dhammaan waxay ka howlgalaan ama ay ka shaqeeyaan goobaha caafimaad ee magaalada. waxaa isna halkaa warbixin dheer oo maxadka ku saabsan ka jeediyey agaasimaha maxadka Maxamed Cabdi Faarax Qudus. ardayda qalin jabinaysa waalidiinta, madaxda gobolka, culimada, bahda waxbarashada, bahda dhaqanka iyo dhammaan marti sharafta kale qaybaha kala duwan ee ka soo qayb gashay xafladda. dhammaantiin waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa maanta farxad inoo wada ah dhammaanteen xaqiiqdii wax aynu dhammaanteen ka wada shaqaynay, ku wada tabacnay, qaarkeed laga yaabo amaba ay tahayba inay subaxii u jarmaadayeen, u soo shaqaynayeen sidii ilmahaasi fiiga looga bixin lahaa, loo siin lahaa nus saacihiisa, loo siin lahaa agabkiisa waxbarashada, loo ilaalin lahaa moralkiisa. halka qaybteenna ay dadaal iyo ruclo ugu jirtay maadaama dufcaddii ugu horeysay ee ka soo baxday ay tahay macadka in ardaydaasi ay hesho xuquuqdii uu arday lahaa ay lahaayeen macaahidda kale ee gobollada kale ka dhisan sida caadiga ay aqoonsan yihiin hay-adahan UN-ka caafimaadka sida WHO-da iyo UNFPA-da iyo wasaaradda caafimaadku. xaqiiqdii waa wax ilaahay loogu mahad celiyo. mahad celin gaarana waxaan siinayaa xaqiiqdii cid kasta oo nagala shaqaysay oo hawsha waqti badan iyo juhdi badan nala gelisay. ha ugu horeeyeen maamulka gobolka gudoomiye Mustafa Xaaji Cabdi, maayarka Maayar Cusmaan iyo isduwaa caafimaadka agaasimaha cusbitaalka Dr. Maxamed Xasan Faarax iyo Dr. Axmed Xaashi. xaqiiqdii waqtigii cuslaa ee ay ahayd inaanu mataqaanaa shaqadan iyo howlaha wadno dadkii ugu badnaa ee garab istaaga iyo in ardayda mataqaanaa moralkooda iyo niyadooda sidii loo ilaalin lahaa laga shaqeeyo bay ahayd. waxaa farxad noo ah mar labaad. waxaan filayaa akademiga xoogaa baan kusoo jira waa markii ugu horeysay aan arko arday isagoo maanta qalin jabinaya isla maantana shahaadadiisa originaalka goobta uu joogo ku qaadanaya oo aan macadkii wax dambe ugu soo noqonahayn hawlihiisii kala wadanaya. waxaan si gaara ugu mahad celinayaa xaqiiqdii wasiirada gobolka wasiir Cabdi Ducaale Qambi, Yaasiin Faratoon iyo wasiirka caafimaadka hadda jooga Cumar Cali Cabdulaahi. xaqiiqdii oo gaar ahaan wasiirka caafimaadku waxaan u malaynayaa wax 2 saac ka yar
shaqadii kaloo dhan intuu iska istaasiyay markaan shahaadada ka saxiixanay 2 saac wax ka yar buu noogu dhameeyay shahaadada noogu saxiix waxa kaloo hadal isaga dambeeyay waalidiin bahda waxbarashada iyo dhaqanka marka labaad waxaan u hambaliyeynayaa dhalinyarada qurxaha badan oo ku qalabaysan tacliin waxbarasho oo waliba caafimaad oo tiyuusreysay waxaan leeyahay deegaanka dhalinyaro innaka iska leh ma tihidin kuwii berri ee waxaa tiin kuwa maanta shaqaynaya cusbitaalada dhalinyarada ayaa ka shaqaynaysa innaga waxa siyaasadda dhalinyarada matalaysa oo akhri waynu liibaana taasi waxa weeyaan waa kelmad guud ardayda qurxaha badan idinkuna message-ka idin jeedin waxa weeyaan saxaabi rasuulka oo yimid saxaabigaas rasuulku wuxuu dhahay yaa rasuulallah أي الناس أحب إلى الله إلهي دتك يوجو تعليها وأي الأعمال أحب إلى الله إلهينا أعماشك يوجو تعليها مركز رسولك حول إلهي دتك يوجو تعليه وحويا أنفعهم للناس ودتك أنفع إذا كنا ما أنت وإذاك أنفع إن دتك أنفع ولد السجية أعماش إلهي يوجو تعليها أنا رسولك وحوله وحويا سرور تدخله على مسلم وقف مسلم أكفر حسد تصال رسولك بحيي أو تكشف وحويا عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو وحويا تضرد عنه جوعا قفك كربها يسئلات كفيدid imsa qofo kurbaysan baa idin iimaanaya oo dawo u baahan hooyo don't worry everything will be okay maskaxda u daji waxa ugu fiican ama dayn ka bixisid ama waxa weeyaan gaajo haysay ka cayris marka aynu noqono dad markasta bulshada anfaca sidoo kale waxa isaguna halkaasi ka hadlay isuduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Dr. Maxamed Xasan Dabshid ahaan haddaan iminka afka maamulka ku hadlo waxaan filayaa inaanu hadhowto si annagoo qudhadkaygu dadyagu aanu shaqaalaysiinano meel kale ka raadsan mayno waa uun idinka uun kuwii horeaanu qaadanayna dabcan arday badan iskuul ka soo baxday baa jirta iminkana kuwa soo baxay haddii wax inoo soo kordhaanna dee meel kale ka raadin mayne idinka uun bay noqonaysaa aad baana noogu faraxsannahay in ardayda intaa lagsoo iyo nabadgelyadiisa iyo mustaqbalkiisa inay keenaan cidda laga rabaa waa idinka ilaahay waxaan weydiisanaynaa in ilaahay kuwa idinka dhibo waxaana hadalka soo xidhay barasaabka gobolka isagoo guddoonsiiyey shahaadooyinka ardayda waalidiinta iyo ardayda iyo dhammaan dadka qalin jabinaya waxaan leeyahay hambaliyo ilaahay cilmigiina aad barateen inuu noqdo cilmi ku anfaca reer Buuhoodle oo bedela cilmigii iyo caafimaadkii dadka aynu uga fadhinay dadka banaanka ayaan ilaahay ka baryayaa cilmiga aad barateen waa amaano amaanada inaad u gudataan ilaahayna idinku asturaan idin baryayaa marka horeysa qodobka labaad jaaniska maanta aad hesheen waxa laga yaabaa inayna jirin Buuhoodle maadaama tiin dufcadii u horeysay ee macadka ka baxda dadkii dadaal badan iyo waxaan ku yidhi hawlo badanna way ka soo mareen dhalinyarada inoo suurto gelisay ilaahay baa mahad iskale laakiin yana mudnaan bay leeyihiin nin kasta oo ka soo shaqeeyayna wuu ku mahadsan yahay Ibrahim Abdiqaadir Samnews TV Buuhoodle adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Idahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda Dahabshiil haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida